Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Weli waxaan ku guda jirnay barashada graphic design gaar ahaan softwarekeena Adobe Photoshop CC 2023 aan ku guda jirnay casharkeena. Maanta waxaan ku qaadanaa sida loo sameeyo ID card ayaan ku qaadanaa. Tusaale ahaan hadda boorka hortiina ka muuqdo sidii aan u samayn lahayn ayaan ku qaadanaa. Tusaale ahaan kan oo kale ayaan sameynaynaa. oo hore waxaan tagaynaa sida caadiga file aan tagaynaa kadib new aan leenahay. New markaan ano kadib unit waxaan dooranaynaa inches ayaan dooranaa maadaama ID card aan sameynayno shay walba wuxuu leeyahay inches u gaara. Tusaale ahaan haddii meeshan inches ay ku qoran tahay haddaa bedelo tiradan waa isbedelay. Hadda meeshan waxaa qoran 2.125 iyo 3.75 ee ku qoran. Haddii inches ka bedelo centimeter oo bedelo tirada cabirka waa isbedelaa. Marka sidaas darteeda mar walba waxaa fiican unitka inaad qaadatid. Marka unitkeena waxaan ku meeshaan ku celinaynaa kadib cabirka kore waxaan ka dhigaynaa 2 ayaan leenahay dhibic iyo 125 ka dhigaynaa kor. qaybta hoose aan ka dhigaynaa sorry kor waxaan leedahay 2.125 dheh. sorry waxaa inches ka horta kow inches markaa ka dhigtid unitkeena waxaan ka dhigaynaa qaybta kore waxaan ka dhigaynaa 2 aan leenahay dhibic iyo 125 aan ka dhigaynaa. sidoo kale qaybta hoose aan imaanaynaa ayadaa noo diyaarsan 3.75 waa. sidaas darteed resolution waxaan ka dhigaynaa 300 aan ka dhigaynaa maadaama uu yahay sizekan uu yaryahay si cabirkiisu u fiicnaado hadhow si fiican u soo baxo. qaybta kore title waxaan qoranaynaa waxaan qoranaynaa front aan leenahay front iska dhaynaa front aan leenahay ID card iska dhaynaa ID card iska dhaynaa front ID card iska dhaynaa front ID card markaa dhaw kadib kaliya aan leeyahay sida caadiga saan u soo bixi doonaa. sorry kan waxa waaye ana softwareki iska leysan. okay markii saan uu soo baxo kadib waxaan sameynaynaa shib aan soo qaadan. tusaale ahaan ID card noocan oo kale aan sameyno shib aan soo qaadanaynaa rectangle tool ayaan soo qaadanaynaa. okay halka markaa tano kadib qaybta shibiskan tagayna waxaan soo qaadanaynaa ellipsing tool aan soo qaadanaynaa. kadib waxaan sameynaynaa halkan soo bilaabaynaa saana ugu jiidana oo shift la hayo shift la qabo weynee zaid markaa weyno halkan markaa marayno kadib waxaan sameynaynaa meeshan quraabo leh kalarka maadaama filarku kan uu yahay kalarkiisa bedelaa leenahay kalarkaan ka dhigaynaa kalarka maadaama bedelo shibka bedelo haddaan aan geenaynaa control wide wax yar yaray si loo arko. okay waa qaadaynaa meelaha camal aan geenaynaa. okay halkan markaa geeno isla shibkan waxaan ka sameynaynaa copy control J leeno meesha taagan layerska haddaad tagtid hore aad kala kartaa. midka hoose waxaan sameynayaa copy midka copy waxaan ku sameyn doonaa ama midka hoose waxaan ku sameyn doonaa kalarkiisa aan bedeli doonaa. fontkiisa waxaan ka dhigi doonaa farta loogadeena caadiga inta badan aan isticmaalno ayaan ka dhigaynaa kan oo kale meelaha camal ka dhigaa leenahay hoos soo il wax yar farta noocan ka dhigaynaa kadib okay leenahay. okay markaa dhahno sida shibkii aan joogno wax yar hoos u soo celinaynaa hoos u soo qaadaynaa hoos u soo sida caadiga saan kugu soo bixi doona. kadib waxaan sameeynaa qaybta kore aan tagaynaa kan qaybta kore markaa tagno waxaan sameynaynaa kaas waxaan ku sameyn doonaa stroke ayaan u sameyn doonaa. kan kore aan tagayaa strogiisa aan tagaa caddaana ka dhigaa strogis kadib gadaal u soo laaban doonaa strogis ma inoo taagan waxaan sameyn doonaa wax yar aan ku dari doonaa strogiisa been aan ku dari doonaa ilaa meelahaas aan geyn doonaa. okay marka meelahaas geeyo oo kadib waxaan sameyn doonaa caddaankii waa muuqda. maxaan sameynaa tilaabada xigta aan sameynayna waxaa waaye waxaan soo qaadanaynaa shib aan soo qaadanaynaa waxaan sameynaynaa shib kale aan soo qaadanaynaa oo caadi ah ayaan soo qaadanaynaa halkaan imaanaynaa kadib halkaan saas u jiidanaa hara sugina dhex gelino sorry anaa qaldamay control Z leh mid kale soo qaada lena control shift oo lahayo halkaas kan kadib sidee saas u sideen. okay shibkan waxa waaye strogis waa bedelina hariina kalarkiisa noocaan aan siinanaa. okay halkaan markaan marayno halkaan waxaan soo gelin doonaa sawir aan soo gelin doonaa file aan tagaynaa place aan leenahay place markaa dhahno sawirka meesha ku yaala adaa og anaad sawir aan iska soo gelinayaa sawir aan soo gashanaynaa. okay sorry waxaan tagay graphics desktop ka tag kadib jimco tag halkaan soo karaan doona sawirkaan soo qaadan doona aniga sawirka markaa soo qaato anoo isla meesha joogo waxaan sameyn doonaa sawirkii right click dhigi doonaa
sida caadi hore u soo barnay waxaan dhehna clips mask aan dhehna sawirkiina si caadi u gali doona automatic kadib maxaan sameynaa talaabo xigta aan sameynayno waxaa waaye maadaama bal aan soo fiirino recalki waxaan soo qaadanaa magacan ayaan soo qaadanayna okay meeshana geele waxaan soo qaadanaa tiidaan soo qaadanayna halkaas imaanayna halkaas markaa imaano halkan waxaan qoraynaa engineering bio ama MBO halkan qoraa leenahay MBO so referto seska zaid ma yareen doono MBO waa kadib ka ayaa leeyahay maga fasalka referto seska yareen doono control order okay seska yareenna ilaa waxaan ka dhiganaa meelahaas markaan geeyo waxaan sameynayaa move token ku laabanaa magaca halkan keeni doonaa meelaha camal keeni doonaa kadib qoraalkii dooraa leeyahay qoraalka markaa i dooratid farta bold dhig sidoo kale waxaan ka dhiganaa strong ka dhigaa leeyahay fartan haddaa rabtid magaceeda waa iska bedeli kartaa aday ku taala ma fahamtay jaskaas kale hadda magaceena waxaan ka dhiganaa MBO meesha waxaa ka maqan MBO wire ka maqan meesha way ku dar MBO markaas qoro kadib waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanaynaa qoraalkan kale ayaan soo qaadanaa qoraalkan hore inaad soo qaato ayaan hadda qoraalkan soo koobi garaysan doonaa kliga leeyahay qoraalkan soo koobi garaysan doonaa halkan markaan joogo waxaan sameynaa qoraalaan soo qaadanaa qoraal markaas waa TV soo qaadanaa halkan imaana qofka title-kiisa la inaa sheego control V ale maadaama aad watay CEO founder waa qofkan waa qof madaxa kadib waxaan sameynaynaa fartaas hooyo yareynana fartiis maadaama yareena ilaa heelaan geedsinayna kadib farta magaceedana waan ka bedelayna waxaan dhiganaa wax kale aan u dhigaynaa ama magacii kale u dhig haddaa arti farta magaceeda meeshan geli haddaa farta magaceeda taqaanid farta isticmaalaysid anaan gelin doonaa loona aan gelin doonaa hadda sawirtan idin jirto midaas u gelin doonaa aayala iska dooran doonaa aayala markaa doorto farta magaceeda kalarka uu ii bedelan yahay okay talaabada saddexaad aan sameynaa waxaa waaye sida tidiyan tagaya qoraal kale aan soo qaadan doono qoraal kale ayaan soo qaadanaynaa okay halkaan joogo qoraal kale soo qaadan halkaan kale ku siin doonaa halkaan markaa kale ku siiyo qoraalka uu doonayaan control V le qoraalka maadaama mar rabo inuu waqtiga dheeraado saas darteed soo koobi gareystay xaggaas soo koobiyey oo soo jiidi doonaa halkaan keenan doona centerka keenayna centerkana keenayna okay magaca waxa meesha magaca diinkan iska bedelayna oo magaca meesha diintidu ay qoran tahay ayaan meeshan atayna magacaas iska bedelayna tag kadib qoraalkaada imaaw markaas imaaw tiidu tirtir aan leenahay sorry ma soo sixi doona kadib soo laabanay meeshan ku soo laabanayna halkaan imaanayna markaas control V leenahay qoraalkan siisan u deynayna okay kadib waxaan sameynaynaa qaybtan wax yar u sii dhaweynayna magaca siisan u dhaafayna maadaama labada magac islahayn laakiin mar wad waqti inuu ii dheeraado saddex siisan u deynayna kadib waxaan sameynaynaa shiibaan soo qaadanaynaa qaybtan hoose imaanayna halkan asaan u jiidina halkan basas u jiidid kadib waxaa sameynaysaa font kalarka bedela leedahay kalarkan yidhig kalarka markaad dishid kadib banaanka tag mar labaad waxaa sameynaysaa shiib kale soo qaado shiib kale aan soo qaadanaynaa kadib waxaan sameynaynaa halkaan ku sawiraynaa shiib kale halkaan saas ugu sawiraynaa kadib waxaan sameynaynaa halkaas markaa shiib kale ugu sawirno stroke u sameynaynaa strogiis waxaan ka dhigaynaa cadaan ka dhigaa leenahay kalarkan kale ka dhigaa leenahay kadib markaa strogiis aan doorno waxaa kala sameynaynaa strogian tagaynaa wax yaraan saan leenahay meelahaas amalgee wax yar soo yarayaan leenahay meelahaas amal ka dhiganaa kadib halkaan markaa marayno waxaan sameynaa loogada halkaan soo gelinayna loogadeena halkaan soo gelinayna waxaan tagaynaa feelan tagaynaa blazea leenahay blaze markaa dhano loogadana halkaan ka raadinayna loogada MBO halkaan ka raadi soo qabo kadibna soo qaad halkaan markaan keeno kadib soo qaado meelaha ama ku sii dee qaatan gee okay loogadan halkaan markaan keeno sida meesha ku sii deynayna okay waxaan kala sameynaynaa
mar labaad fartantiidan soo qaadanayna halkaan imaanayna kadib halkaan waxaan ku qoraynaa farta kalarkeeda bedel waxaa ku bedeshaa leenahay cadaan ka dhig maadaama meesha isku yihiin isku ekaahaya ma fahanti saa darteed waxaan ka dhignaa cadaan ka dhigaynaa okay aan leenahay kadib halkaas imaaw meesha waxaa qoraysaa www dot qor kadib envio aan leenahay envio aan leenahay kadib control a dheh dooro horta seeskeeda wax yar weynay aan leenahay seeska markaa weyne kadib waa soo laabanaynaa kadib qoraalkeena waxa qaybta hoosaan keenaynaa meeshan ku aadinaynaa okay ayrikarka sidaan ku sameynay aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh